عرّي كدب علي سو عرسدي iskala iga daw imaaday habada la igu dhiftay Cabduqaadir Abuukar Axmed oo magaciisa afgarashada ay kaliyihiin Nasruddin iyo Saabir 2017 ayuu qawaariijta al-shabaab kaga biiray deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo uu ku qaatay tababarkiisii ugu horeeyay ee shabaabnimada. waxaan ku dhashay deegaanka Dar es Salaam waxaan ku barbaaray Dar es Salaam waxaan wax ku soo bartay Dar es Salaam kadib 2017 waxaan ku biiray al-shabaab waxaan u biiray deegaanka Janaale waxaan u biiray kadib tababar ayaa la bilaabay kadib waxa uu ku biiray qaybta jabhadaha qawaariijta muddo 4 sano ayuu ka tirsanaa isagoo ka qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo ka kala dhacay Ceel Saniini Afgooye Daarusalaam ceelasha biyaha iyo meelo kale tababar kadib jabhad ayaa la wareejiyay jabhadii muddo 4 sano ayaan ka tirsanaa waxaan dagaal ka qayb qaatay 5 dagaal waa Ceel Saniini Afgooye Daarusalaam Xamar iyo Daarusalaam Owdhegle Afgooye ceelasha biyaha intaas aan qayb qaatay 2022 ayaa loo soo wareejiyay qaybta dilalka gaadmada ah ka geysata Muqdisho shaqadii koowaad iyo labaad ee uu qabtay caawiye ayuu ka ahaa taasi oo u ahayd tababar inuu cashir ahaan uu si toos ah u barto sida dadka loo dhagro ilaa iyo ugu dambeyntii uu noqday dilaa isku filan oo xitaa aan u baahnayn in qof kale uu la howlgalo 2022 bishii koowaad waxaa la soo wareejiyay amniyaadka kaliya soo wareejiyay yaraan hal sano ka tirsanaa dhowr shaqo aan u qabtay 3 shaqo aan u qabtay shaqada koowaad waxaa ahayd caawin mid kale ila socday waa caawinahay waxaa ahayd access control Afgooye midda labaad waxaa ahayd aydan caawin kale dayni la ahayd garaad ana soo diray meesh imaadaan ugu dhahay ka imaanay tabeelaha markaa imaanay kadib Cabdullaahi arkan oo mootiile ah kadib waan soo waday akisana keenay kadib ninka qaabkiisa noo sheegay waxyar kadib waa imaana ana idin tusaa ugu dhahay waan u tusay kadibna waa ninka waa la dilay midka labaadan dayni la ahayd asan caawiyaanka ahaa 11 bishii 8 2023 maalinimo Jimcaha salaadii khudbada kadib guri ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku dilay ganacsade Isaaq Aadan Cali Isaaq dilka kadib eedeysanaha ayaa isku dayay in ciidanka ilaalo qaran oo goobtaasi ka agdhawaa uu isaga reebo bambe F1 iyo bastoolad ugu dambeyntiina waxay goosteen inay dhaawacaan si gacanta loogu dhigo isla goobtaas ayayna ku soo afjarantay silsiladiisii argagixisnimo Somsayd Galalitus noocaas uu wataa mobile noocaas uu wataa كانت بدي حكومة قاعدة عليولا وصباحي كدبنا ومركو صباحي وقاتي جامع هذا جامع كقول حقاتي أنا أكتب وعزباي شغلة وعزبتاي مفكراي وسكر مفكراي قاعدة تانك لأيه ريسا بس كدبنا كمركان قاتي وعرّي كدب علي سو عرسدي iskala iga daw imaaday habada la igu dhiftay kadib waa dhaawacmay kadib waa la soo qaaday isla falkan 3 maalin ka hor Allah u naxariistay nabadoon Salaad Cali Aadan Wiid ayuu ku diray degmada Dayni la gaar ahaan waaxda halgan dilka kadib Cabduqaadir ayaa isku dayay inuu looga ka bixiyo taleefanka marxuumka taasi oo dhalisay in Google Drive-ka Gmail-ka ku xiran uu keediyo sawirkiisa waxaan soo wacay garaad waxaan u dhahay Cabdullaahi imaan doona tabeelaha idinku imaana soo raac tabeelaha uu tagnay kadib waa raacnay Dayni la nagiyay inaa la idin tusaa inaan qaadaytiina la idin karaa waxyar kadib 4 saac markeeda ninka waa soo baxay ana doon meel gees istaagnay caawintu aan ku qornaa shaqaalay bara caawinta ku qornaa afar kadib meel goolad aan ku jiray xabada maqlay kadib waxay imaad abaasa ay imaaday ninka waa qaatay ee soo baxay ugu dhahay
cabdiqaadir abuukar axmed waxaa kale uu sabab u noqday Julaay 3, geerida Maxamed Aadan Isaaq oo ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa. Eedeysanaha labaad Maxamed Ibraahim Amiin oo ahaa macallin dugsi ayaa lagu soo eedeeyey inuu balamiye Allah u naxariistay nabadoon Salaad Cali Aadan Wiid iyo inuu ahaa shirqoole sahlay dilka nabadoonka oo carruur isagu uu mas'uul ka yahay ay dhiganayeen dugsi uu macallin ka yahay. eedeysanaha labaad laakiin maxkamadda ciidamadu waa ay ku weysay. fadhiyo kala duwan kadib 18 bishan ayay soo gabagabowday dacwadda ka dhanka ahayd cabdiqaadir abuukar axmed iyo maxamed ibraahim amiin. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn maanta ku xukuntay cabdiqaadir abuukar axmed dil toogasho oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah nabadoon Salaad Cali Aadan Wiid, Samafale Isaaq Aadan Cali Isaaq iyo Maxamed Aadan Isaaq oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana maxkamadda ay xorriyadiisu dib u siisay maxamed ibraahim amiin kadib markii lagu waayey qodobadii lagu soo eedeeyey, sida uu warbaahintu u sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. cabdiraxmaan gacan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.